Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Waliid waxa uu ahaa 28 jir. 2 sano ka hor markii uu jiray 26 sano ayuu meel shaqo ka helay. Waxa uuna ka shaqayn jiray xafiis. Wuxuuna ka ahaa xisaabiye. Mushaar badan ma uusan ku shaqayn jirin, balse inta yar ee uu qaato ayuu meel dhigan jiray si uu mustaqbal ugu samaysto. Muddo kadib, waxa uu go'aansaday in uu guursado. Waxa ay wada heshiiyeen gabar ay isla shaqayn jireen oo meesha kala shaqayn jirtay. Gabadhii ayuu reerkeedii u tagay, balse nasiib xumo gabadha reerkeeda waa ay ku gacan seereen. Waxa ayna u sheegeen in aysan gabadhooda siinaynin, maadaama uu yahay nin hanti yar haysto, sidoo kalena guri aan lahayn. Gabadha oo lagu magacaabo Muna ayaa reerkeeda ka dhaadhicisay in ay ninkan doonayso oo haddii ay u diidaanna aysan nin kala guursan doonin. Ugu dambayn, gabadhii waa ay ku qancisay reerkooda in wiilkan la siiyo. Muna iyo Waliid waa ay isguursadeen, muddo ayayna wada noolaayeen. Maalin maalmaha ka mid ah, Muna ayaa ka dalbatay odaygeeda in ay lacag meel dhigtaan si ay guri u dhistaan. Balse Waliid ayaa arrintaas aad ola yaabay. Waxa uuna ku yidhi, sidee ayay macquul ku tahay in aan meel lacag dhiganno innaga oo marmarka qaar nagu adag tahay in aan biil helno. Muna markii ay arrintaas maqashay waxaa ku soo dhacday fikraddaas oo aad uga helay Waliid. Waxa ayna ahayd in ay shaqo kala tagaan oo meel kale oo ka mushaar fiican meeshan ay ka shaqaystaan. Arrintaa aad ayay ula wanaagsanaatay Waliid. Waxa ayna codsi u dirsadeen shirkad kale oo mushaar fiican bixisa. Nasiib wanaag labadoodiiba imtixaan ayay galeen, waa ayna guuleysteen. Waxa ayna ka shaqayn jireen shirkadaas. Shirkadaasna waxa ay siin jirtay mushaarkii ay shirkadda hore ka qaadan jireen 2 jibaarkiis. Noloshoodii ayaa isbedeshay step. Kadib waxa ay noqdeen dad meel wax dhigan kara. Ugu dambayn waxa ay dhisteen guri, waxa ayna gateen gaari. Maalin maalmaha ka mid ah, Muna iyo Waliid ayaa waxa ay damceen in ay soo booqdaan Waliid waalidkiisa. Guriga ayay aadeen, waxa ayna ugu tageen Waliid hooyadiis oo qof waayeel ah, sidoo kalena xanuunsan. Ayna la joogin cid oo kaligeed sariir iska jiifta. Waa ay soo booqdeen, waa ay soo salaameen, kadibna waxa ay ku soo laabteen gurigooda. Muna ayadoo arrintan la yaaban ayay odaygeeda ku tiri, maxaa sababay in hooyada kaligeed ay meel joogto? Waliid ayaa ugu jawaabay, markii aan aniga iyo adiga isguursanay kadib waxaa dhintay aabbahayga. Hooyadayna ma haysato ehel kale, waa ay xanuunsan tahay, mana haysato wax daawo siiyo, sidoo kale xitaa wax cunto siiya ma haysato. Muna ayaa aad ugu qaylisay Waliid. Waxa ayna ku tiri, miyaadan arkaynin gurigan weyn een degannahay, maad inta keentid hooyo? Waliid ayaa arrintan lama filaan ku noqotay, waa uuna rumaysan waayey. Aad ayuuna u farxay oo si degdeg ah ayuu u baxay. Waxa uuna u tagay hooyadiis. Waxa uu yidhi, hooyo, waxaan doonayaa in aad annaga nala noolaato maadaama aan degannahay guri weyn. Hooyadii oo aad ola yaaban ayaa ku jawaabtay, oo xaaskaaga miyay ogoshahay in aan la joogo? Waxa uu yidhi, haa hooyo, ayada ayaaba itiriba hooyo noo soo wad si ay noola noolaato. Hooyadiis ayaa ku tiri, arrintaasi macquul ma aha, oo adiga ayaa igu qancinaya, ee waxa aad ii sheegtaa intee in la eg oo waqti ah ayay kugu qaadatay in aad ku qanciso xaaskaaga in aan idinla noolaado? Ugu dambayn, Waliid iyo hooyadiis waa ay isa soo raaceen, waxaana la soo aaday gurigii. Xaaskiisii Muna ayaa hooyadiis si weyn u soo dhaweysay, martiqaad qurux badanna u samaysay. Waa la wada qadeeyay, waa la wada baashaalay, muddana waa la wada farxay. Waxay muddo saas ahaataba, maalin maalmaha ka mid ah, Waliid hooyadiis ayaa ku tiri, wiilkaygiiyow, xaaskaaga markii aad maqan tahay si xun ayay iila dhaqantaa,
balse markii aad joogto way i wanaajisaa oo adiga ayay iska kaagadaa. Sidoo kale hooyadiis ayaa ku tiri, adiga kuma jeclo ee waxa ay doonaysaa oo keliya lacagtaada. Waliid arrintaas ma uusan rumaysanin, maxaa yeelay xaaskiisa markii uu guursanayay ma uusan haysanin wax hanti ah, sidaas ayayna ku jecleed. Mana jiri karto sabab ay maanta ku jeclaan karto hantidiisa oo keliya. Balse si uu u qanciyo hooyadiis waxa uu ku yidhi, hooyo waa runtaa oo xaaskayga ayaa khaldan. Waxa uuna u tagay xaaskiisa oo waxa uu weydiiyey waxa ka dhaxeeya iyada iyo hooyadiis. Waxa ay ku jawaabtay, hooyada waan jeclahay, mana jirto wax naga dhaxayn kara oon wanaag ahayn. Waliid ayaa isaga tagay xaaskiisii oo shaqadiisii iska aaday. Maalin maalmaha ka mid ah, Muna oo ah xaaska Waliid ayaa waxay surprise ama kadis u samaysay odaygeeda iyo hooyadiis. Waxa ayna u sheegtay in ay uur leedahay. Waliid aad ayuu ugu farxay arrintaas, alla ayuuna u mahad celiyey. Balse markii uu fiiriyay wajiga hooyadiis, waxa uu arkay hooyadiis oo aan ku qancin warka kuna faraxsanayn. Balse naftiisa waxa uu ka dhaadhiciyey in ay tahay khilaafkii yaraa ee ka dhaxeeyay iyada iyo xaaskiisa. Waxaa laga joogay muddo badan. Maalin maalmaha ka mid ah, waxaa dhacday arrin lama filaan ah. Arrintaasoo uusan filaynin Waliid. Waxa uu aaday shaqadiisa, si kadis ah ayuu ooga soo laabtay shaqada. Balse wuxuu arkay arrin uu marnaba filaynin. Waxa uu indhihiisa ku arkay xaaskiisa oo hooyadiis haraanti ku dhufatay. Hooyadii ayaa dhulka ku dhacday iyada oo oynaysa. Waliid arrintaas markii uu arkay aad ayuu u qayliyey, waxa uuna ku yidhi xaaskiisa, maxaad samaynaysaa? Balse waxay isku dayday in ay u sheegto siday wax u jiraan, iyada oo dhahaysa, arrintu sidaas ma aha, sidaad mooday ma aha, aan wax kuu sheego. Waliid markii uu arkay hooyadiis oo dhulka taalla weliba oynaysa, waxa uu ku yidhi xaaskiisa, waan ku furay ee iiga bax albaabka, ma doonayo wejigaaga dambe in aan arko. Waxaa halkaa ku eg qaybtii koowaad. Haddaba daawade, maxay kula tahay sababta keentay in Waliid xaaskiisa Muna ay sidaa ku samayso hooyadiis? Ma awal ayay shariirad ahayd oo waxa ay ahayd qof shar badan, mise arrin kale ayaa jirta? Ra'yigiina inoogu reeb qaybta hoose ee commentiga. Lana soco sheekada qaybteeda xigta insha Allah. Ha ka iloobin channelka in aad subscribe saarato oo gambaleelka furato si aad ula socoto qaybta dambe ee sheekada iyo muuqaalada ka dambeeya ee xiisaha badan. Wassalaamu calaykum.